بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 5 calaamadood oo haddii aad isku aragto markaad toobad keento 5taas calaamadood waxay daliil u tahay in ilaahay toobadaadu u aqbalay. waxay haddaan ku hormaro ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta wuxuu ka dalbay inay toobad keenaan. wuxuu ilaahay qur-aanku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa. ilaahay u toobad keena toobad dhamaystiran. towbatan nasuuxa waxaa lagu fasiray toobad dhamaystiran. culummada waxay dhaheen shuruuday leedahay toobadda. hadday tahay xuquuqul insaan bini aadanka wax aad ka samaysay, inaad xamatay, inaad xoolo ka qaadatay, dhul inaad ka dhacday, beer inaad ka dhacday, guri inaad ka dhacday, wax hanti ah haddaad ka qaadatay, 4 shuruuday leedahay. 1 ficilkaasi dembiga ah qofka uu sameeyey inuu ka shalaayo, الندم waa 1. qofka markuu ka shalaynayo ficilkaasi wuxuu leeyahay nadaamada macnaheedu waxa waaye qofkii oo dhahayo ilaahow waa ka shalaayay waxaadan raali ka ahayn oo dembi ah inaan sameeyo. regret ee dhahaan luqadda ingilishka. nadaama la yirahdo luqadda carabiga. af soomaali waa shalay. wuu ka shalaaya qofka maxaan u sameeyey ficilkaas. hadduu hadal yahay hadalkaasi maxaan heblaaye u xantay, maxaan hebel u xantay, waa shalay. 2 dembigaasi uu sameeyey faraha inuu kala baxo. iqlaaca la yirahda tan waa dhar adoo iska dhigayo oo kale. ficil hadduu ahaa ama hadduu ahaa hadal, in uu ficilkaas ama hadalkaasi faraha kala baxo, inuu halkaas uu ku joojiyo. 3 caziima la yiraahdaa ballanqaad inuu sameeyo. wuxuu ballanqaad ku sameynayaa, wuxuu la sameynayaa ilaahay. wuxuu leeyahay ilaahow haddaan ficilkaasi hadda aan sameeyey oo aadan raali ka ahayn, haddaan ballanqaadaya inaan mar dambe inaan ku noqon doonin. qofka wuxuu sameynayaa wax la yiraahdo go'aan adag oo ah mar dambe inuusan ku laaban doonin. khamre hadduu ahaa ilaahu khamradaas kuma laaban doono. heeso hadduu dhegeysan jiro ilaahu heesaas ma dhegeysan doono. haddii oo movie ama filin uu geli jiro ilaahu filin dambe aan gelaya ma lahan. ballanqaaduu sameynayaa. 4 xuquuqul insaan hadduu yahay. 3 waxa waaye xuquuqullah. ilaahay wuxuu diiday oo aad samaysay, aad ka toobad keenayso. midda 4aad oo ah xuquuqul insaan hadduu yahay wax bini aadan. guri hadduu ahaa dadkii guriga lahaad u tagaysaa, gurigiini waa kaas waa idin soo celiyey. dhulbeereed hadduu ahaa dadkii dhulkaas lahaa u tagaysaa, beertiina waa idin soo celiyey. haddii lacag ahayd qof uu ka dhacay, lacagtii oo dhamaystiran waa tan. cafisna wuu weydiisanayaa. markaas kadib marka towbadii in la aqbalay iyo in kale maxaa ku ogaanaysaa? 5 xaaladood. 1 qofku wuxuu jeclaanayaa ilaahay hadalkiisa, waa qur-aanka kariimka ah, inuu akhriyuu jeclaanayaa. kalaamka ilaahay inuu la hadlo, ilaahay inuu kula hadlaa jeclaanaysaa. waxaa arkaysaa qofkii kitaabka qur-aanka akhrinayo markasta, ama juz ha akhriyo, nus juz ha akhriyo. markas haddaa aragto qof qur-aanka ilaahay qofkaasi oo ilaahay waafajiyey inuu qur-aan akhriyo markasto, markuu toobad keenay kadib 5tan haddaa aragto ilaahay qofkii toobadii uu ka aqbalay. 2 haddaad aragto qof jecel nabiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisii oo kale
يدقنكيسي إنو ياشو وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قفكاسي النبي عليه الصلاة والسلام كودي دي سانايو أنا قفكي واحد أركيسا طابت كان عليه الصلاة والسلام رسولك وحو برنا يسير ديسي وحو رسولك جعليه وجعليه رسولك عليه الصلاة والسلام ودديسي وكودي سانايا يضو كوبا وحونا الرباه نبي عليه الصلاة والسلام إنه أوئكاضو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلهي وحيري وحا رب وحقيقة رسولك إلهي إنه إذن كوغسو إياهي كدايشا وناكسا مركو الله وكدايشا دي نبي سدح قفكاسي وحو جعلانا يا إنه خير كلي دقيستو دقيه وهو القلينا يا وحي أو حيصو أما حن أما بين إنه دقيستو أما عاي إنه دقيستو وحاسو دان فروه كقاضايا وحو جعل يهي أو كلي إنه دقيستو خيرك قرآنك إنه دقيستو جعليه وحو جعل يهي وعدي إنه دقيستو مركزتو شيوخ ذا مربى الشيخ وأبوذايا مركز حاركيسا قفك أو فريسان لا محو كودك دقايا خير كاسي إنه دقيستو واسدح مد أفراد وميل واي قفك وحد أركيسا إنه كنو نقونايو مساجدك إلهي سبحانه وتعالى قرق إلهي رسولك عليه السلام إذا رأيتم هذا أركتان قفك نقونايو قرق إلهي سبحانه وتعالى فاشهدوا له بالإيمان قفك هاسي مرخاتي وقوكع إنه أهل الإيمان يعني قفك مركو توبت كان علامات من علامات التوبة وحاكمة حد أركيسا قفك أو مساجد كونو نقونايو مساجدك إلهي قف دلين waxaa arkaysaa masaajidka soo galay oo ku soo laalaabanay waa calaamada afraad marka waa meesha qofku uu aaday waa meesha qofku uu badnaanayo hadii meel kale oo khayr ama ficil khayr lagu qabanayo uu tagaya meel dadka lagu kaalmeynayo uu tagaya meel khayr laga sheegayo uu tagaya masaajid ha ahaado ama meel kale ha ahaato marka waa goobta midda shanaad qofkaasi wuxuu jeclaanayaa dadka ahlu khayrka ah oo nabiga ugu horeysama nabiga gadaashiisa marka qofkaas wuxuu jeclaanayaa inuu ku xirmo culimada dhehaysa qaala Allah qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam markaas qofkii wuxuu samaysanaa uu raadsanayaa culimada inuu xiriir la yeesho ama si kale hadaa u dhigto saalixiinta dadka wanaagsan dadka ahlu khayrka ah dadka simaadka khayrka ka muuqdo dadka khayrka ka shaqeeyo dadkaasoo raba inuu la saaxiibo marka waa calaamad shanaad waay qofka markuu toobad keeno calaamadahaas hadduu isku arko ilaahay toobadii waa ka aqbalay iyo culimmada yiraahdeen sheekh cumar cabdikaafi wuxuu yiri waxaad arkaysaa qofkaasi oo toobada laga aqbalay nooc kastoo khayr ah isagoo xamaasaysan xamaasada hayso مساعدك مركو هذا وفرح سنة نور إيه فرحة كموت مركو قرآنك أوفرته فرحة يدقنان راحة كموت مركو كتابك أوفره فرحة راحة يدقنان يا كموت لأن وحنا نقول كتابات كان إنجليز كتاب كسر وإنه كراحة إمام النووي حجري حبين كستو وجرك حق جوني ليهين عندها حق وضو حاكمت كتابك إلهي مالين والبو إني أركان حتى هذا حافظته إلهي أنطبت كأنه إلهي مركا أنطبت كأنه هديتها حقوق الله سدح ذاسي شردي أنبوحنه هديتها حقوق الإنسان انت هذا لمن أفرت شردي أنبوحنه كذب على مظهر مكاسكو أركتنا الحمد لله ده نبي عليه السلام أصحابتي سوسوك الميمارين وحولا يحدو جره قف إيقا تبانايو هذا الآن دحي oo dhibsaday oo aan sax ahayn walaalo horteeda soo istaag waxaan rabaa anoo nadiif ah iyo wuxuu kala dhahay qof gacanteeda ay gaartay ama usheeda ay gaartay hadduu jiro ikhtisaas ikhtasni inaha khisaas hadda samee oo iga aargudo